السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وحنا كان كوسو بندقي دونا شن مهود كان مدا كون كما مهود السومالي لحدا وعسن وحنا سلسو أرني أمان سلسو مقلني شن كمد كون كما مهود السومالي لحدا وعسن إن شاء الله ما أنتنا شن تحكت أيان صوب بندقي دونا دو رب هالك النقطة كان بلا بني سلم بركلي حال ما ماذا وحي لا هي أرقي دواء على مودا وجدت كما دلوعدا ما ماذا waxa weeyaan aarku sidana sloogna hayba waxa uu leeyahay baabul aad u fara badan taasoo siinayso baawar gaar ah aadna ay dadka kaga cabsoodaan markii uu ka soo horbaxo liana waxa weeyaan baabusha asaga ku talaya waxay tahay mid aad u fara badan oo dadku aad uga cabsoodaan wana maleeyaan xoog iyo quwad iyo maaragtay awood u gaar ah laakiin waxa dhacdo markii uu roob doo ama uu maaragtay biyo u dhex galo baabushi way isku duntaa waxa uu noqdaa wax dhuuban sidii dawacado kale ujeedka iyo maamaada dulucdeeda waa sida ayada maamaada xigto lambar 7 waxa ay leedahay abaal haduusan rag gudin rabba gudo abaal hadaan rag gudin rabba gudo ujeedka dulucda maamaadani waxa weeyaan qofkii horta awalan inuu ahaa qof u sameeyo abaalkan iyo maartay wanaagan ilaahay dartii hadday dhacdo ilaahay dartii inuu u sameeyay hasii qofkii uu u sameeyay wanaagaas uusan ka falcelin wanaag uusan ugu bedelin ee xumaan ugu bedelo ilaahay subhanahu wa ta'ala ee dartii uu awal u sameeyay ayaa ka abaal mariyo maamaada xigta lambar 8 waxa ay leedahay maamaadani abaal raagay rag baale ujeedka ama dulucda maamaada waxa weeyaan hadii aad wanaag sameeyso maalinka aad sameysay isla maalinka ku xiga maahane waxa dhici doonto ama la arkaa inta badan 60 sano kadib abaalkii aad gashay in lagu gudo waxa kale oo dhacdaba abaalkii aabaha uu sameeyay in adiga maartay lagu wanaajiyo in badan waxa dhacdo in markii maartay rag meel iskugu yimaado ama odayalka weyn aad soo ag fariisato ee aad tiraahday hebel baa dhalay mid kamid ama laba kamid ama intoodaba in yiraahdaan alla ilaahay nin wanaagsan baa ku dhalay oo wanaagas ayo hadda ka hor noo sameeyay adiguna halkaas maaragtaa saaxiibtinimo iyo maaragtay gacan qabasho iyo in maaragtay ixtiraam gaar ah lagu siiyo halka inay ka dhalato ayaa macquul ah ujeedka maamaadana waa sida ayada maamaada xigta ee lambarka 9aad waxa ay leedahay abaal waa la galaa in yar baa sugud abaal waa la galaa in yar baa sugud ujeedka maamaadan iyo dulucda waxa ay tahay abaalka maaragtay markii aad adigu wanaag u sameeyso in badan oo kamid ah dadka ayaa waxay kuugu abaal gudaan ama maaragtay falcelin ay kaaga dhigaan inay ku xumeeyaan oo waxa aad u sameeysay waxaan ahayn aad kala kulanto laakiin waxa dhici doonto in yar ee wax garad ay aqli u saaxiiba ee Allah ku xiran inay maaragtay gartaan abaalka aad u gashay deetana maaragtay kaaga falceliyaan hatta hadii aysan maaragtay inta aad u sameeyso kale aysan ku sameeynin waxa kugu filan inay ku yiraahdaan ilaahay ka ajirsiyo ajri ahsanad Allah kugu bedelo iyo khayr Allah ku siiyo ujeedkii dulucda maamaadanina waa sidatan lambarka 10aad ee maamaadani waxay leedahay abaari waa tagtaa ceeb baa ka harto ujeedkii dulucda maamaadani waxa weeyaan abaartu marka ay dhacdo waxa soo fakata baahi aad iyo aad u fara badan dadkii wax yar haystana wixii haysteen way dhaafaan waxa dhacdo in wax haysato inay jiraan hadaba waxa dhacdo inta wax haysato in maaragtay ay gabadfal iyo maaragtay wax aan wanaagsanayn ay kula dhaqmaan intii baahanaydo aysan maaragtay waxooda aysan wax ka seenin ama maaragtay ay ola dhaqmaan si maaragtay aad u xun oo maaragtay bahdil ah oo qalbigooda ma garanaysa ay lagu dhibaateynayo hadaba waxaan ka darasaynaa kaliya abaar lama fiirsanayne maalinkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu wax ku siiyo inta baahan ee maaragtay walaalka ah ee ehelkaaga ee muslimiinta ah ee ku agjoogta in maaragtay aad wax un aad gacanta kaga siiso hadaysan dhicin inaad adigu u garato marka ay ku soo baahdaan ay ku yiraahdaan waxaan u baahanahay in aadan maaragtay aadan ku gabad fulino wixii ay ku weydiisteen hadii aad awoodood karto aad si wanaagsan aad u siiso adigoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir kaga gurubsanayo in badan waxa dhacdo qof wax haysto inuu maaragtay qof aan wax haysan uu ku tigtigsado marka hadaba aysan dhicin in adigoo maaragtay wax Ilaahay ku siiyay kan baahan aad ku jeesto ama ma garanaysaa wax uusan ka mudnin aad kula dhaqanto ujeedka maamaadan waa sidaas shantii maamaahood ee maanta aan soo qaadanay inta ay noogu egtahay intaan ku kulmi doono shanta xigto hadduu Rabbi raali ka noqdo waxa idin leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh